Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Axlaam Cooking. Dhammaan waxaan aad ugu mahadnaqayaa asxaabta subscribe-ka noo dhammaantiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Maanta waxaan sameynayaa baasto aad u fudud wallaahi. Yacni waqti aad u yar ku sameysan karto. Xaggan waxaan ku haystaa hilibkaan isticmaalayaa waa hilib ari laakiin kaad haysataa isticmaali kartaa. Waana shiidan kartaa haddaad rabtana waad yaryareyn kartaa. Ani waa yaryareeyay midida ku yaryareeyay saasaan jecelahay yacni haddii la shiido aad buu wada noqonayaa laakiin xaggan in yarna way taagtaagnaanaysaa in yarna way shiidmaysaa hilibku dhex gelaya baastada dhex gelaya. Halkan maxaan kusoo jarjaray hilibkii haddana waxaan jarjaraynaa toontii 6 xabo toon xaggaa ku haystaa 6 xabo toontaan soo yaryareynayaa soo jarjaraya maanta maxaan gaarnay subscribe-ka 2000 dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaana gaarsiisaan 2000 aad baa u mahadsantihiin insha allah 3000 ayna gaarsiiyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin kusoo dhawaada waxaad ka baran kartaan cuntooyinka yaryar oo fudud. Waxaan kala jarjarayaa basashii waxaan haystaa 4 xabo basal aan waaweyneyn oo yaryar 4 xabo basasha ama soo jarjaranayaa marka haddaad haysato yacni basal waaweyn 2 xabo waa isticmaali kartaa ani basasheeda waa yaryartay ma waaweyne yacni basashiina waan soo dhameeyay waxaan kala jarjaranaynaa basbaas 2 xabo casaan iyo 2 xabo guduud iyo 2 xabo cagaar akhtar haddaad caruur yar siinaysaa ama aanad jeclayn basbaaska waa iska diin kartaa ama waa iska yareyn kartaa xabad waa ka dhigan kartaa. waxaan soo kululeysanay weelkaan ku karsan lahayn kadib waxaan ku darsanay hilibkii baa ugu horeysiinay waxaan ku daray in yar ilaa 2 qaado oo saliid hilibkan iyo biyaha ka saarana marka biyo leeyahay saad yar arksan iyo biyo way ka yaraadeen kadib waxaan ku daranaa basashii si fiican bay isugu yar walaaqanaa kadib ilaa 5 daqiiqo ayaan yara daynay wata basashii noo soo jilicday iyo hilibkii soo dhex galeen kadib waxaan ku darsanaa toontii iyo basbaaskii intaana dib baynu isugu huurinanaa waan isku yara daboolanaa in yar isku yar baxaan kadib waxaan soo jarjaranaynaa yaanyadii kadib waxaan kusoo darsanay yaanyadii baan kusoo darsanay basashii iyo hilibkii si fiican baan isu dhex gelinaynaa
yaro biyo baan ku darsanana kadib waan daboolana cabaar bay ka maqnaanana wata cabaarna suukaas yaro kartay yaro walaaqana yaanyada yaro burburinana kadib waxaan ku daranaa shiid 2 qaado oo shiid iyo xawaashka aniga ku daray waa mid baastada laakiin xawaashada haysta ayaa ku darsan karta waxaan xagga kusoo jarjaranayaa xabad kaarooto weyn ayaan soo yaryareynayaa markay marayso hadaa khudrad kale rabto inaad ku darsato broccoli khudrad kale adii kaabash waxaa rabto oo lagu cuni karo sidooda yacni ama in yar inay bislaadaan aad doonaysa ani kaarootada xilliga dambe waxaan ugu daray waxa weeyaan waxaan doonayaa iyadoo aad u jilcin oo mina bujoqdo kaarootada ma fiicna iyadoo in yar adag yacni oo la cuni karo inay ku dhex jirto sooska suugada ku dhex jirta ayaan doonayaa saas darteed baan xilliga dambe ugu darayaa waxaan ku darayaa waxa weeye in yar oo filfil ah black pepper iyo coriander xawaash geedo ma la dhahaa xawaash geeda ah iyo cusbo milix waan ku daray kadib waxaan ku darayaa kaarootada marka wax badan ma bislayn mayno in yar 5 daqiiqo inay ku yara hurtoon baan la dhiganaa wax yar biyo baan ku daranaa in yar 5 minutes 4 minutes iska yara karaan anoo soo bislaatay dabka baan kasoo baktiyey kadib waxaan karsanaa baastadaan karinayaa waa taa laakiin makarooma noocaad haysato waad karsan kartaa getooni ayaa la yidhaa tan laakiin noocaad haysato waad karsan kartaa makaroomada gaagaaban makaroomo kasta baastadii way noo soo bislaatay suugadii ama sooska aynu sameysanay ayaan dhakada kaga darnaa kadibna waan isdhex gelinana si fiican isugu dhex geli wataa qurux inoogu soo baxday kadib waxaan ku darsanaa barbarooni iyo kabsar xabad barbarooni iyo kabsar ayaan dhakada kaga darsanaa dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin fadlan subscribe iyo like saara baastada wallaahi aad ayay u macaaneed maasha allah yacni